okay umu walaal soo dhow oo iga raalli ahaw adaa xaq u leh inaad hadasho qaado waqtigaaga walaalo si aan kala joogsi lahayn si aan waqti lagu qabanaynin meesha waa meeshaadi walaalo hadal walaasha intaad waqti haysta walaal السلام عليكم وإذا سلامات دمانتين انت داونيسي إذنك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal waan kaa qaadnay dhammaanta inta aniga iyo inta inala joogta walaal horta ma rabin inaan hadlo waxaa isoo saaray maama dahabo markay ka sheekeynaysay waa layla guursaday ma fahante aad iyo aad dadkana waa kala xanuun badan yihiin aniga ilaahay amarkiisa waxaan la yaabaa gabar markii ayadoo dhaqanaysa gurigeeda oo joogto ninka hadduu damco inuu guursado uu maxaa la dhihi jiray gurigeeda uusan soo afaara gashanin uu banaanka kale ku guursado aad iyo aad Een, saas okay marka aniga anoo maqan safar ku maqan oo ilmo iga xanuunsan u qaada meel qorax ah Kenya dhexdeeda horta gurigeyga lagu guursado ma fahanta weliba sariirteydii waa gartay sariirteyda anigoo 14 jir ah weliba lagu aroosay ma garat haye codka kor u qaada yeeraysa ma qayliya may waa iyagu telefoonada hadda lacdan walaal lagu dhihi maayo maya meel baan safar ku joogaa marka guriga guest house-ka aan deganaa waxaa waaye waxaa degan cadaan iyo madow dadkan qaylo ma rabaan okay dhimala si marka markaa commentiga ha akhrinay iska daawad ku dawaqay hadii kale okay marka waxaa dhacday horta anoo garanaynin iskuul iska dhiganayo madrasadeeda iska akhrisanayo baa waalidka nin ii keeneen anoo 14 years jiro waa laygu daray maxaa la dhihi jiray aqbalay reerkayga waa iska dhaqanayay 3 baan dhalay cunuga saddexaad markaan dhalay kii saddexaad baa iga xanuunsaday waxaa la dhahay loo qaado meel kuleel uu u baahan yahay haye marka kuleelkii markaan u qaaday waxaana la siiyey calaayi xaal waa jar la ii degaya umaleynaya 3 bilood buu noo jaray ma fahantay inaan familkayga lasoo joogo haye anigana hamuun baan u qabay familkayga waxaan islahaa 3 bilood wayba kugu yartaa haye soo markaan sii baxayago naag baa la keeno guriga waa lagu sii dhaqmayaa haye guriga waa lagu sii dhaqmayay marka naag baa la keenay layima sheegin waxba ma ogeen aniga reerkeena iyo ilmahaygaan iska haystay haye maamada hooyaday waa Soomaali iyo Kenya u dhaxaysa alaab u qaadaysay marka familkii baan iska sii hayay haye kadib waxaa dhacday maalin maalmaha kamid anoo iska fadhi 3 bilood markay dhamaatay oo inaan soo noqono oo ku dhownahay baa adiga waxaa la ii soo diray message haye guryahan oo hadda number aan garanaynin baa ii soo diray haye waxaa la ii yani wuxuu iska dhigayaa qofka qof dariskayga camal uu iska dhigayaa wuxuu leeyahay waxaan ahay gabar walaasha oo dariskaada oo aad kuu jecel haye gurigaadii naag baa maalintaa tagtay ilaa hadda lagu qabaa ma ka war haysaa waa lagu dhaqmayaa mafahant haye aniga waan yaabay marka ma sii dabagelin markii ayada ahayd waxaan gacanta ku hayay meel guri la dhisaayo alaab ka guraayay haye anoo yaaban haddana oo meel aan u qaada lahaa waan war shaqadii aan dhameeyey markaan dhameeyey hooyaa joogto maalmaha soo martay ahayd ayadii baan maxaa la dhihi jiray u tagay messagekii baan u aqriyay haye shaadi messagekii markaan u aqriyay waxay tiri hooyo shaydaanka iska naar amaysa saa ahayn haye waxaan dhahay wac oo weydii haye waxay tiri aniga wacaya adiga wac anaa wacay markaan wacay waxaan dhahay saasaa laygu dhahay maxaa horta telefoonkii aan wacay telefoonka wuu dansan yahay uma dhacaayo telefoonka messageka iisoo qoray haye bes kadib waxaan wacay asagii waan wacay waa weydiiyey saasaa maqlay maxaa jiro haa baa laygu dhahay waa run haye bes sidaas miya ahaa ani war kale ma sii dhihinba telefoonkeygaan iska goostay waan aamusay oo because hadal iimaba banaano meeshaas meelaan ka hadla ma lahan familkeygii waa la joogaa alxamdulilah haye dadkii kale keena baan dhex joogaa soo mogid waayo waan gartay abtiga hadda ilaahay ha u naxariistee asagaa keena jinninkii keenaa bixin karo aad iyo aad marka markii ayada ahayd abtigay baa loo wacay ilaahay ha u naxariistee wuu imaaday wuu wacay wuxuu dhahay haa way jiraan wayna dhiceen qaladka gurigaan naagta ka bixinayaa haye maxaa la dhihi jiray gurigeedaan kusoo celinayaa guri intaan samaysanaynay baa xoogaa nala tagta sheekada ma fahanta haye
marka hadday la tagtay maxaa masarraha bini aadanka isla dul tegayaan haye marka ayada ah marka ani maba hadlaayaba aamusnaan baa iga soo hartay mud aan haye la ogeyn baan gala ma garata haye sheekooyin baa igu dhex furan keligay baa sheekaystaa familkana lama wadaago waa iska aamusana haye because waxaan sugayaa go-aamada soo bixi doona inay dhihi doonaan bal ninkii waa lagu geyn rabaayo reerkaadii dhaqo aan ka war sugaya ma fahanti haye marka waa la isla hadlay haye waaye baa la yiri waxaa la isku dayay in gurigii la ii baneeyo aniga gurigii la ii geeyo umo intay shirkada wada hadal ku socota amaad wixii soo ogaatay weli gabadhii ma gurigii bay sii jilba weyn tahay haa way joogtay sugday wayba sii joogi doontaaye waayo badan bayba sii joogi haye doontaaye bal shaqaale ahaw ku soco shirkada haye marka calaya xaal waxaa dhacday waxaa la dhahay ninka asaga ha loo yeero ha imaado meesha anaga joogno anaga gaarisaan joogno meesha gurigeygana nairobi buu ahaa waa loo yeeray wuu imaaday gartii markii la galay hooyadee baa la kari waayo because madi baan ku ahaa ma garate haye keligaa baa ahayd keligay baan ahaa wiil iyo gabarba hooyo iyo aababa marka waxay tiri gabadhan ilmo yaryarna way haysataa naagtan ninkan hadduu guriga ka saaray reerkeeda ha dhaqato ninka gurigiisa saa iska lahaay caali haye usoo kala furiyay haye familkii isku dhinac bay mareen markaan arkay arrintii inay aniga uun keligay ee noqon rabto oo lileeya reerkaada dhaqo waxaa ma jiraane baa waxaan sameeyey waan soo dhuuntay ma garat nairobi waa haye soo dhuuntay haye telefoonkana waan dansaday nambar kalaan qaatay haye ilmihii iyo hooyo iyo familkii ayagaa iskaga soo dhexbaxay haye bes adiga cabaar baan magaalada joogay laakiin waxaa ku fiicnaa hal abtigay baa ila jiray oo magaalada nairobi degan halkii haye asaga ahaa gurigiisaan jooga magaalada meel kale kama sii gelin asagana imuu haye sheegin familkeedana imaysan yacni familka guriga dhan layma sheegin anaa dhiila jiray intii isla jirtay iyo ninkiina gaarisa uga soo cararay haye marka waxaa dhacday adiga cabaar markaa maqnaa hooyadeena waa qof wax dhalay haddana aan keli ku ahay wiili haye ahaan weysi oo dhowr bilood sii aaminsanahay anaa hooyadee haye wacay waxaan ku dhahay meeshaan joogaa haye marka waxay tiri warqadii aan kaaga qaadaya because qof shaqaysana ee lugtay ka xirmatay qof keligay isoo koriyay ahayd aminkaan ilmo iyo maaragta mashquulka maysa geli karin haye ayadaaba kulaataybo ninkiina iska soo laabayoo reerkiisii buu dhaqanaya haye bes hooyaan la hadlay ma hubtaa warqadda ma iga qaadaysaa haa waan soo laabtay marka meeshaydii baan ku laabtay ciyaalkeygi waan iska qabsaday markaan u imaaday waxay tiri waxaan kuu sheegaa ninkii wuxuu dhahay ilmaha iyo warqadda waa isku xiran yihiin haye annaga marka dhaawac kale haa ilmaha la isii marka waxay tiri walaalay 3 baa daahaysatid inaad si yacni wax kale inaad dhalaysid ilaahay baa og warqadiisana ha haystee ilmahaada anaa kugu biilaayay ilmahaada hayso gurigaadan joog haye dumar maxaa ku taqaanaaye ani waxaa igu rakiban markaa asagana naaguu qabaa uu sii dhaldhalaa miya anigana maxaa la dhihi jiray halka mada ilmihiisaan fadhiyaysaa bixiyay haa hayahan ku dhahay maamada gurigeeniyaan iska joogay safarkeedii bay bilowday markay soomaali usii jeesanaysa ana nairobi usoo jeestay ilmihiyaan soo qaaday ma garata haye ilmihii baan soo qaaday gurigii baan keenay albaabkan ku qarqaraacay ayadii baa iga furtay waxaan ku dhahay waxay tiri maxaa waa ilmaha ninkii guriga lahaa u yeer baan ku dhahay haye gurigaasina waa gurigaadii lagugu qabay ee gogoshaadu taalle weeyaan waa kii aniga ligu qabay qabitaan ma jirte yaaba i qabo haye jin baa i qabay marka ani waxaan aaminsanahay inuu jin i laakiin qabo waa gurigaad ciyaalan ku dhashay walaal soo maaha ha hataa gabadhaydaa ku qoran haye bes waan qaaday ilmihii albaabkii baa la qaraacay adi calaayi xal naagtii baa soo baxday waxaan ku dhahay ninkii guriga lahaa u yeer wuu soo istaagay waxaan ku dhahay ilmihii waa kaas haye warqadana beri aan ugu imaano magaalada haye waaweynta haye ilmihii maxaa la dhihi jiray waan siiyey waana kasoo jeestay gabar saaxiiba aan nahay ila socotay waan kasoo tegay gurigeena iska imaaday abtiyaashii waan ka wareegsaday marka haye adi awowgay aabbahay adeerkiisoo mandheera ka imaaday aan la kulmay hayaha laygu dhahay waa loo yeeray warqadii baa la iiga qaaday warqadii markii la iiga qaaday warqadda kale warqadda kale qaadasho mayna culays ba ahaynba maa la bixinaya ninku muu bixinaya
dee warqadda ilmahaygaba hadduu ku xiray oo cabaarna maxaa la dhihi jira liis haystay anigana aan diida ninkii warqadayda inuu siiyo wuu ku qasban yahay soo moogi haye waxba kuma moogtahay intii yacni waxaan ka jaray intii hadallada socdeen aniga kuma sharaxin oo yacni guri kale hadday rabtaan u gado wadankay rabta ha degto wax maalaa yacni markaas aniga igu soconin ma garat okay waan gartay ku soc walaal say ku qurban tahay haa marka calaayi xaal ilmihii markaan u geeyey maalintii labaad waa loo yeeray waa la ballamiyey warqadii baa si fudud laiga qaaday alxamdulilah haye warqadii markii laga qaaday ani muhiimadeyda marka hore warqaday ahayd warqadii markii la siiyey ilmihii baa soo haray mogtahay haye ilmaha gabadha sii baa la dhahay wuu diiday waan ka aamusay aniga maba iswaalin meherkaygii wuu diiday meheraa sheegaysiina boorsada dharkaa taha la siiyaan ku dhah garad haye adiga gabadha markaas ila socota saaxiibada aan nahay wiilashooda meelo kaba iyo maxaa dhihi jiray alaabo keeni jireen wiilashii baa waxay dhaheen ani samiyaa iska shaqeyso magaaladaada ma garatay muhiimadeydana aniga waxay ahayd inaan shaqeysto oo marka ayada ciyaalkayga aan ka fogaanin oo yacni nairobi aanan ka dhex bixin haye aan isbaro magaaladeyda baa iska shaqo galay sabti axadaan u tegi jiray midda ugu xumeed marka ma ahan in lala guursado ma ahayn yacni waxyaalahaas dhan waxay ka maxaa dhihi jira waxaa iiga sii xanuun kululeed marka inta ilmaha u tegin maragte ilmihii oo dayacnaa soo arko haye oo sabtidaan u tegi jiray mise axadda waxaa israacaynaa aniga gabaraan saaxiibana marka midda iigu sii xumeeda waxay ahayd naagtii waxay ugu noqotay waraabadadow ma fahante haye ilmihii alaabtaan u geeyo anoo taagan baa qashinka lagu ridaa ma garate haye anna ma daalo naagtina waxba ma dhaho haye waayo ani waxyaalo kalean ka fikirayay marka ayada gabdhaha saaxiibadaya la socda inay dagaalamaan isku dayi jireen guri ani laigu bahdilay anoo ka maqan sariirtayda laigu guursaday in aan ku dagaalamo aan ka cararayo ma garate bahdilkaas iyo balaayadaas kalean ka cararayo calooshaan iska xirta haye 6 sano aan markaan ilmaha kasoo tagay intaan qol keliga isku soo xira iska oyni jirin 6 sannadood waanan qarin jiray ma garate haye kadib marka ilaahay amarkiis go-aan waxaan ku gaaray inaan iska guursado ilaahay waxaan ka baryi jiray 3 laiga qaato oo keliya inuu ilaahay isiiyo ma garate haye marka ilaahay amarkiis 1 sano bisaan garoobeeyey sanadkii dambe waa iska guursaday alxamdulilah markiiba maxaa dhihi jiray ilmahana waa u tegi jiray waa soo booqan jiray alxamdulilah maanta anaa wada haysta ilmahayga oo wada korsanayo markaan 2 wiil iyo gabaraa laiga qaatay markaan 2dii wiil dhalay gabadhii anoo umul u ah oo u fadhiyo bay ilmihii ciddi ka carareen haye 15 bir anoo umula ilmihii carareen ilmihii markay carareen baan maxaa dhihi jiray habeenimaa laysoo wacay dumaashadii ex baa soo wacday ma garata haye markiiba waa cararay marka go-aankayga wuxuu ahaa naagtan 6 sano ilmahayga markaan u tagay igu silcinaysay haddii lacala anoo ilmahayga ay kasoo carareen gurigeeda kuma dhex dulminin wax kale ma sameynin maalintaas yacni hadday gacantayda soo galeed waxaa malayna ilahay amarkiis ma ogi ciijidaan ku dhego naftaa ka bixi lahayd ma garata haye haye ilaahay amarkiis waxay igu tiri ilmahaadi bay soo carareen anay ila joogaan markii maxaa dhihi jira naagtiina waxay rabtaa in ilmihii loo celiyo ninkii bay soo diraysaa kaale ilmahaada qaado 6 sano naagtii waxba ilaahay ma siinin ma garata hadduu ilaahay siin sariir naageed baa lagu dul astaqfirullah haye bes markii waa orday ani iyo gabar habrirtay dhasho markaa magaalada marti ku aheed oo ila joogtay waa baxnay dagaal baan diyaar u ahaa 15 beri umul ahaa ilmihii hataa waan ka cararay keligood baa iskaga tegay 2 yaryar oo markaas aad u yaryar iyo maxaa dhihi jira kana umush kula jira gabadhii 3 wiil 2 wiil iyo gabadhii ilaahay waa isiiyey isla markiina maxaa dhihi jiray umushi dhexdeeda ilaahay ilmihii kale igu soo celiyey waan tegay xaafadii markaan tegay xaafadii oo buuq ka jirin baan tegay ilmahaygi baa markii way igu soo ordeen because ilmaha haddii aad ka fogaatid oo lagaa qaato dhibkeeda leedahay waa inaad isbartid ilmaha waa inaad lugta ku fiirisid ani lugtan ku fiirin jirin waxyaalaha lagu sameynaya ma fiirin jirin ilmaha markii way soo ordeen gadaal bay iga soo mareen isagii waa meeshii jooga wuxuu dhahay ilmaha saan laguma kala qaadanayo ugu
haye waxaan ku dhahay gurigaada kama soo bixin aan ku dhahay ilmaha adeeg kaa soo carareen hadda maanta anay i taagan tahay haye ilmihii waan soo kaxaystay maalintaasaan go-aan waxaan ku gaaray marka hataa kan iqaba inaan u fadhiisan ma garate aan shaqaysto because waa gartay maalintaas ayada ah 100 shilin oo kaar ku gato yacni $1 ma haysanin ma garate boontiga qodobkaasaan u baahanay hablu fahmaan qodobkaasaan u baahan hablu inay fahmaan haye maalintii hore ee wiilka hore uu ku furayay ama dhibaatada kugu dhacaysay 100 shilin ama $1 ood gaari ku raacdi mahaysan bas raaca madaysan laakiin wallaahi gurigan dambe inaad shaqaysatay noqotay haye marka isla markiiba maxaa la dhihi jiray adi calaayi xaal go-aan waxaan ku gaaray inaanan shaqada sii joojinin oo kabihii iyo wixii yacni ani ma joojinin shaqadeydana way isii socotay waana iska dhalaya ma garat haye ilmihii waan soo qaatay ilmihaygii iskuulkii waan kasoo bedeshay iskuul kalean geystay dugsigaan geystay markii qisadii igu dhacday waxay tahay ilmihii gaas baa horta ku dhacay ma garat maalintii yoomalqiyaama horta la weydiin doonaa ma garata eega u taalaa walaal codkaaga shucaab ayaa galay waxaan shaqadii waxaan ku fulo mikrofoonka hagaaji caruurta saddexdii ciyaal ahaa ee gabadhii haysatay gaas baa ku dhacay gaasna qof ku dhacaa waa gaajo ama duruuf ama diif aclam ilaahay baa og wixii gaaska ku riday laakiin ilmaha markay gaas ku dhaceen markaan guriga keenay baa ilmo hooyada maxaa la jiray ilmo hooyada iyo hooyada 6 sano kala maqnaayeen waa taqaanaa ilmihii caanihii iyo bintadii iyo wixii aan siinayay calooshii uga dhaceen ma garata haye isbitaalka markaan geeyey marka waxaa la dhahay ilmaha waxaa aad siisay ee qoqoyan calooshooda maysan aqoonin saas darteeda ilmaha hor iyo gadaal u noqdeenaa ligu dhahay alxamdulilah waan daaweystay iskuulkoodaan geystay haddana waa biilo dheerar eg yihiinoo maanta safaraan uga soo maqanahay nairobi ilmahayga anaa wada haysto south african kasoo jiraa ayagaaba ishaaya ma garate inkastoo lala joogo hooyada iyo familka dhan ay joogaan maalmaha kasoo maqanaa u laaban marka dunida waxaa waaye yacni dumarka markaada maaragtay dadku way kala yihiin ninba waa si qof baa isagoo garab leh oo yacni wiil garab taagan mise gabar garab taagan leh laga yaabo qooq dartiis inuu familkiisa dhaqan waayo mise ku dhaho waa lala guursaday iyo waxaan loo joogin naag intii lala guursado maseertir la siiyo guri loo hagaajiyey oo banaankaas looga guursado waa naag la xishmeeyo oo weli la jecel yahay ma garata maasha allah ha marka ani waxaan dhihi lahaa dumarayo marka horeba horta bariiska dabka aa ku wada shubeysiin waxaan dhihi lahaa aa ku wada shubina gabdhaha qaar maanta dhan roog bedel heblaayo waxay dhigatay fiiri intaa ku mashquulsantaa maalin bay kugu furmi doontaa meel aad u baxsatana aada lahayn sax laga yaabo teeda kale waxaa ogaataa waxaa arkaysaa dumar yacni ninka isdagaalayaan soo oynayso social media soo fariisanayso waxaa laga yaabaa in maxaa la dhihi jiray dhib kaleeto u haysto social media soo fariisanayso maya dadka u oynaysid duca oo keliya kuu awoodaan ma garatay ani waxaa aaminsanahay yacni intaa adduunka saaranahay wax walba inaa dhacsan karo inta ninka ragga uu soo shaqeeyo inaa shaqaysan karo wax walbo ninka ragga u qabtan inaa qaban karo ma garatay waa gartay marka alxamdulilah horte waxaan dhihi lahaa gabdhayahow shaqaysta shaqada wax dhaamalawaa gacanta ka baxa intaana wax lagugu sadaqaysan wax sadaqayso adiga waxa lagu weydiisto alxamdulilah ciyaalkayga sida taajiriinta oo kale yihiin ma garat qur-aanka labada u waaweyn 2 jeer bay dhameeyeen marka waa kaa iloobe ninkii sidii isliciyey wiilashayda mid kamid ah hadda u celiyey ma garatay because wuu xanuunsaday aad buu u xanuunsaday ilmo kalena lama joogin nafsiga noociisa wacan haye laakiin ma aaminsana ma aaminsana weli inaan ka fiicana awlaadii hooyadood xumeeyey awlaadii hooyadood eriyey uu awlaadana kala haray maanta mid kamid u baahan ama awlaadii ama hooyadiiba xataa u baahan yahay hadduu jaanis ku heli lahaa maanta kusoo noqon lahaa hooyadii maanta u baahan yahay waxaa la dhahay ilmi iyo hooyadood ayagaa laisu korinaya laakiin waxaa waaye ilmaha dhibaatooyinka soo gaaraya badan fiiri markii oo ay ilmaha aan keensaday dhibaatadii ugu weyn oo ay qabsataa waxay tahay
cunuga yar haddaa shumisid kan weyn wuu ku fiirinaa ma fahamtay uqdada ku jirto wuxuu u maleeyaa inaa haye ka jeceshahay habaar baan maxaa dhihi jira intay ifahmayaan aan ku dhibaateysnaa ee noqotay kan weyn ilaa iyo kan yar haddaan guriga wax keena ilaa haddana gurigayga waa sidii cunuga marka yar waxaad ka ilaa wadaa waxaad ka wadaa ilaa awlaadda ninka dambaad u dhashay iyo awlaaddii kaa maqnayd ha sida iskula falgalaan marka waxaa waaye walaahi maxaa dhihi jiray ilaa hadda gabadhayda weyn oo gaartay ilaa iyo midka iigu yar ee wiilka ah maxaa dhihi jiray markaan wax soo gadaayo waa ka wada simaa ma garatay aad iyo nina haddii hataa tan 18 jirka waa u keenaa waxaan sameynaya waxaan isleeyahay waxyaalihii soo maray qalbigooda ha ka meermo aad gartay aan kuu ducaynaya walaal ilaahay ha kula garab qabto walaal ilaahay ha kula garab qabto walaal alxamdulilah hadda dhib ma qabo dadkana ugu sarreeyo dadku waxay weydiinayaan ninka dambe waxa mu dhashaa alxamdulilah 3 wiil iyo gabar baan u dhalay ha ma garan inaan iyo sheego iyo saddex hore todoba awlaada maasha Allah waa guri buuxay hooyo qurux badan yarade hooyo 14 sano lagu guursaday walaahi dadkana way ku murmaan ma garatay oo hadda waxay leeyihiin ilmahan adimaada dhalan markaas la socono wiilkayga anigu iga dheeriya maasha Allah marka dunidan waxaa waaye inaa caloosha xiratid dulqaad samaysid aamustid waxyaalaha kugu hareereysanna aad fiirsid unbaa hore uga socon kartaa laakiin haddii dulqaad aada lahayn oo tilaabada aada qaadaysid iyo hadalada ku hadlaysa aysan ku xisaabsaneen waayaha adduunka kama yacni way kula dhuldhigayaan ma garata waa gartay marka taa waan kaa iloobay markii laisoo furay waxay ila joogi jirtay haye bilaadan ku sheegaa way ila joogi jirtay ilmeyga chemicalkay ku dhex marsan jirtay markii laisoo furaa u tagay waxaa lagu dhaha mataqaanaa markii laisoo furo bal gabar saaxiibtay ii taagane oo meesha ii furayaan oo inta kusoo wareegi ilaa maxaan dhahay markii la furay banaanada martiyaa lagu dhihina familkaada ku dhexlaawo ayadaa la guursaday inay la joogto cunug bay markaa dhashay markaan u tagay waxay igu tiri hawr yar hal qol bay deganeed markaas way dhoofaysay waxaa lagu dhaha mataqaanaa neefta ee cunuga gabadha u diidaya ma garatay sidaa cudur qaba camal marka haddii kabar qofkii kula joogi jira kula noolaa ilmahaada chemicalkii wax walba ku dhex marsanaya marka aad u tagta ku dhaho waxaan u diidaya ilmahaygan yani gabadhaydan u diidaya neefta sida adoo cudur qaba camal yani meel laga seexdo ma laha waa gabadhii shalay tolo gurigeeda joogtay ee kimikada ku dhex marsisay awlaadaada ku dhex dhagnayd markii adoo aad garoob noqotay gurigeeda u baahatay waxaad guriga buuqomaan caruurta naqasay qabanaya kawaran dad badan baad baratay bismillahi raxmaan raxiim that's why oo maxaa dhihi jiray waayaha ee ku maxaa dhihi jiray fiicanta waxyaalo badan inaa martid ani waxayba ii noqotabo waxay ii noqotay adeegun baan ka qaadan kara dadkii ayaga ahaa qofkii ayaga ahaa anaa maanta ii baahan waayo markii waxaan bilaabay inaan farsamo yaqaan noqdo waxyaalo badan aan qaban karo computerka oo kale inaan wax ku design garan karo ma garatay xoog inaan wax ku barto waxyaalo badan aan barto hadda markay guri qofkii asaga ahaa maanta markuu rabo inuu guri qurxisto mise inuu wax sameysto telefoonka ugu soo wacayo ma garatay aad iyo aad rabo inaa wax walba u qabatid because dukaankayga sawiraanta aroosyada iyo waxyaalahaasaa lagu sameeyaa dadkii ayaga ahaa oo waayaha markaan soo maray kontonka shino kaarka yacni $1 ii quuri waayey hadallada qaqaabdarkan igu dhahaya maanta ayagaa ii baahan alxamdulilah allah yabaarik maasha allah mahadsan tahay waxaan leeyahay gabdhayahow is adkeeya oohin wax ma tarta ma garatay si kastood u oysid ducaa lagu awoodaa wax kuu qabanayo malahan ficil ku daraa ficil ku daraa ka kacaalkaad joogtaan
ها walaal aad baan kuu salaamayaa ilaahay ganacsiga ha kuu barakeeyo ilaahay awlaadda ha kuu barakeeyo sawirkii daba allah ha kuu barakeeyo keep going walaalo keep going guulayso noloshaada Mm. maanta cid